halkaani waa isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ee magaalada Muqdisho. Xalifiidkii halkaani waxa ku mushay hooyo Maryan Maxamed Xasan. waxayna ku curatay 4 gabdhood oo mataana ah. waxaan warbixin gaar ah idinkaga diyaarinay maamada iyo caruurteeda. ila socod. hadda waxaan la joogaa hooyo Maryan Maxamed Xasan oo xalifiidkii ku curatay 4 gabdhood oo mataana ah isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir. Maryan Maxamed Xasan ayda waa markii igu koobaad oo ku dhalay isbitaal dawladeed. alxamdulillah fiicana waan ka imaday xoogaa adiga cadale marka adiga culays badan aan dareemay iyo xoogaa adiga tabaryaro sidaas unkeedan u soo aaday dadanta adi tobanaad ii waay intii ka horeeyay waxaan ku dhalay jiray xaafadda ilaa aniga waxaan haysto isbitaal ima dhaweyn oo baadiyaan joogo maya markii aan imid kombiyuutarka la saaray la socodsiiyay wax badan ay sameeyeen waa ay kaalmeeyeen waa ay soo dhaweeyeen dhulka ima dhigin waa ku mahadsan yihiin 4 gabdhood ilaahay si hore aan dhalay jiray ilmo laakiin hadda 4 gabdhood ilaahay u siiyay meeshaan alxamdulillah meeshaas aan ku dhalay jiray guriga laba mantaan maraan dhalay halka kale kamid ay ahaayeen ilaa markaan waa ka kiisooynaa maano ولسكودي حوجي دوري عن حوجا أديك عن دبستي ماي كل ما هواي كل بكوي كويا اللي واي ماي كلماتي كلام لهم اللي هو حقيقي هذا بكرة الله ويسود وانا إيه قرحي وانا إيه شرفي وانا إيه كلمي خير الله سيوك ما تسي تانتو مانو والله سوق هنا قايم والله سعودية حالة ديسة اللي يسود ولا شرفي ولا قرحي وحب ليس مي بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو دكتور حسن علي الجدي كهولجلا إسبتال بنادر قيبتا هويدا إيرلانكا حالي أباريه سقدها وحنوي مد ماما فولا ودي في نادر مركي حالة دي الله في رياه ماما اسمه كانوا إيمانيسي وحنا وقت مد بول وحقدرنا بارتانو ده مكقدرنا وحقوقنا إن ماما ده وضو متانو ولو يقانو توينس ما دام ماما ده متانو وضو كبيتر كان كوجاني وحكلو سي حقيقي ترى متانه وضو متانه ترى وضو هاين 4 متانو 4 هذان markii la fiiriyo computerka waxa loo fiiriyaa madaxkeen miya maqlooc miya madabakena markii maadaama ay ahaayeen ilmihii bridge oo loo yaqaano dabakeen waa communication ka dhasho hooyooyinka markay dhalayaan markii mataana ee maamada wado hadana ay tahay bridge oo loo yaqaano dabakeen madana waxa lagu dhaliyaa qalliin cesarean section maadaama maamadaasi ay waday 4 mataane anaga waxaan ku dhalinay si normal ah oo loo yaqaano SVD spontaneous vaginal delivery waa markii ugu horeysay isbitaal Banaadir ee ku dhalato maamo 4 caruur ah haddii la dhaafta Soomaaliya inta la joogo 3 iyo 2 iyo la maqlaayay 3 waxaan ogahay in qalliimo lagu sameeyay maadaama markii ugu horeysay 4 oo dhasho oo si caadi ah u dhasho waa markii ugu horeysay talbanaad laga dhacdo haddana 4 ay noqdaan gabdho wallahi marna waa farxada iyeed marna xoogaa cabsiya jirtay oo waxaan ka cabsanaayay hooyada inay develop garayso wax loo yaqaano communication oo BBH inay maamada dhigbax iga noqoto cabsida ugu weyn ay hayso waxay ahaayeen maamada markay dhasho kadib maxaa dhici karo oo imaan karo marka dhigbaxaasi si loo manage gareeyo team mo ayaan oo wacday waana manage gareynay alxamdulillah wax dhiig baxna kama dhicin markii aan aragnay maamada in 4 cunug noo hayso ay caafimaad qabto farxad ayaan la ilmeynay anaga dhamaanteen aadaan u faraxsanayn waa markii ugu horeysay aan arko maamo 4 dhashay 4tana gabdhahay wadiin hadda xaaladda la joogo hooyada xaaladeeda aad u fiican tahay aadaan gacanta loogu hayaa caruurteedii ayada way caafimaad qabaan qaybteena noo jeefaan waa taa soo aragtay wax dhib hadda ma qabaan hooyooyinka degan magaalada Banaankis waxa ugu baaqeynaa in ay la soo xiriiraan isbitaalada si xaaladooda caafimaad loola tacaalo markay uurka leedahay mar maamada inay timaado maamadan aad ayay u fiicneed mar ay noo timid aan baaritaan u sameynay waana ku sheegnay inay mataana wado markii labaad hadda noo timid wax noo timid si foole marka maamooyinka waxa kula talinaynaa inay yimaadaan isbitaalka markii ugu horeysay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ay ku dhashaan 4 gabdhood oo bataana ah hooyo Maryan Maxamed Xasan oo ka timid degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe xalifiidkii halkaani waxay ku dhashay 4 gabdhood oo bataana ah sida ii sheegtay hooyada
markii hore waxay ku dhali jirtay guriga balse maanta way ka duwan tahay hooyada ayaa markii hore waxay soo booqatay iyadoo uur leh isbitaalkan xaalkeeda inta badan waxaa la socday ilaa ay ka dhalisay Dr. Xasan Cali Geedi oo ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgasha isbitaalka hooyada iyo dhallaanka waliba qaybta maternity-ga ayaa inoo sheegay xaaladda hooyo Maryan Maxamed Xasan intaynan dhalin ka hor isbitaalkan ay booqasho ugu imaan jirtay Bahja Cabdullaahi Salaad Rays TV Muqdisho hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo ku sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada qaraabada ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobilka waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeegga internetka hormuud ee ADSL Plus guriga xafiiska ama xarunta shirkadaada isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida